sida caadiga ah dadka in muddo ah ku wada nool hal xaafad waa ay siqaanaan waxaa la og yahay qofka wanaagsan iyo qofka xun dadka kuwa ugu sharafta badan leh ugu naxariista badan leh kartidooda bannaanku taalla si gaar ayaa loo qadariyaa iftiqaar waxa uu ka mid ahaa dadka noloshooda sidaa ku soo barbaartay laakiin danta haddii ay ciishay dembiga ma isagaa leh duruufta uu ku sugan yahay hadda ma isagaa doortay dadka oo idil haddii ay dayriyeen oo deriskiina nacay xagguu daryeel u doontaa ku soo dhowow qisadeenna lixaad ee maalinkii ilaah iyo qunsulkii Kameruun oo aad kala socotaan kanaalka cilmi kororse haddii aad nagu cusub tahay fadlan saar subscribe si aad ula socoto qisooyinka kale soo socda siina gaarsii asxaabtaada daawasho wacan qisadan bilowgeedii waxa uu ku soo bilowday dalka Bangladesh waxa uuna ku soo dhammaaday dalka Sacuudiga iftiqaar waxa uu ka dhashay qoys noloshooda dhexdhexaad tahay oo aan u baahnayn wax kaalmo ah aabihii waxa uu ahaa cunno kariye ka shaqeeya hotel weyn oo magaalada ku yaalla markii uu soo gaaray da'da waxbarashada waxaa la geeyay iskuullada kuwa ugu wanaagsan waxa uuna ku noolaa nolol uu aad ugu qanacsan yahay waxa uu ahaa arday waxbarashada aad ugu wanaagsan macallimiintana guud ahaan ay aad u jeclaayeen ardayda ay isku fasalka yihiin dhammaan waxa uu la ahaa saaxiib kuwa liiliita waxa uu soo kaxin jiray gurigooda mararka qaarna waxa uu u geyn jiray macmacaan iyo waxyaabo ay ku farxaan carruurta hooyadii waxa ay guriga ku lahayd dukaan weyn oo ay ku iibiso dhammaan cunnooyinka kala gedisan ee xaafadda u baahan tahay waxa ay ahayd qof aad u naxariis badan dadka aan awoodin inay qarashka iska bixiyaanna deensiisaa guud ahaan reerka iftiqaar waxa ay ahaayeen reer aad u wanaagsan oo aad loo tixgeliyey xaafadoo idilna laga jecel yahay haba yaraatee ma jirin qof ka mida dadka xaafadda deggan inuu ku tuhmo xumaan ama wax la mida waxa ay ahaayeen reerka markii ay dhibaato dhacdo loo soo doonta gargaar iyaga oo noloshooda si caadi ah isaga wata oo wax dhibaata haba yaraatee aan qabin caafimaadna qaba ayaa goor habeen ah weliba iftiqaar oo soo jeeda guriga wax soo weeraray oo yimid booliis waxa ay garaacmo aan loo aaba yeelin u geysteen aabihii waxay u dileen si xun ma uusan garanayn sababta ay booliiska u garaacayaan weliba isagoo ku qaylinaya war maxaad iga rabtaan maxaan haleeyey war maxaad rabtaan war yaa ahaydeen ha yeeshee booliisku dhag jalaq uma siinin si fiican ayay u garaaceen garbaduub ayayna u xidheen hooyadii oo isku dayday in ay weydiiso booliiska sababta ay ninka u dilayaan waxa ay u sheegeen inaysan u soo dhowaanin haddii kale iyadana ay garaaci doonaan aabbihii oo si xun u dilan garbahana ka xihan ayay jiideen oo kaxaysteen deriskii ixtiraamka badan laga filan jiray ay weligood qadarin jireen reerkan markii ay duruufta ku timaadana ay gurmadka u soo doonan jireen markii caawa la soo weeraray haba yaraatee hal qof oo xataa gurigeeda ka qaylisan u dhicin waxaa loo gaabiyey liifadda waxaadna u mooddaa in derisku mas'uul ka ahaayeen wax reerka ku dhacay ciduna ma oga ilaa iyo hadda sababta booliiska ay reerka u soo weerareen dhibaatadan ugu geysteen markii booliisku la dhaqaaqeen aabbihii oo derisku ay ogaadeen in booliisku baxay ayay u soo carareen reerkii iyaga oo raba inay ogaadaan waxa meesha ka dhacay iftiqaar inkasta uu yar yahay wuxuu si kulul ula hadlay deriskii waxa uu ku yidhi inta dhibtu nagu socotay ee aabbahay la garaacayay oo cabaadkiisa iyo qayladiisa aad maqlayseen oo hintaan isku darnaad maqlayseen haba yaraatee ma jirin cid noo timid ma waxaad rabtaan hadda inaan idinkaga sheekayno sida aabbaheen loo garaacay naga taga wax aad derisnimo iyo wanaag aad ka ogtiin ma leh dadnimo idinku jirtaana ma jirteen dhammaan waxa uu gurigii ka cayriyey deriskii oo idil iftiqaar iyo hooyadii waagii markii uu baryay waxay u soo carareen saldhiggii booliiska marka ay yimaadeen taliyihii booliiska waxa uu sheegay in aabbahood xiran yahay suuragalna aysan ahayn inay arkaan waxa uu sidoo kale u sheegay in aabbahood loo haysto dembi aad u weyn xataa ay suuragal tahay in dil toogashaa lagu xukumo markii ay weydiiyeen dembiga waxa uu yahay
taliyihii wuxuu ku yidhi berrito kaalaya si aad u ogaataan aabbihiin waxa loo haysto. Iftikhaar iyo hooyadii markii ay yimaadeen maalinkii kale saldhigga booliska waxa ay u yimaadeen taliyihii oo wejigiisu beddelan yahay, taliyihii oo aan ahayn kii ay shal la kulmeen, taliyihii oo aad mooddo xataa iyaga inuu rabo inuu garaaco. waxa uu si kulul oo aad u xun ku yidhi isaga dhaqaaqa meesha. odayga waa la kaxeeyey, maxkamad ayuuna jiraa, waxayna u badan tahay in dil toogasha lagu xukumi doono. nasiib ayaad leedihiin haddii aad heshaan meydka aabbihiin. Iftikhaar waa carruur yar oo aan fahmi karin waxa meesha ka socda marka laga reebo inuu u xiise qabo aabbihii uu iska ooyo. hooyada markii ay maqashay kelmadahan adag ee xanuunka badan leh ka soo yeray taliyihii booliska, si lama filaana waxa ay ka dhacday joogga, waa ayna miir daboolantay. waxaa loo soo qaaday isbitaalka. markii isbitaalkii la keenay waxaa laga codsaday inay bixiyaan qarashka daawada, waxaana loo sheegay Iftikhaar oo uu xusuustaa in lagu yidhi hooyadaa madaxa ayaa dhiig uga furmay. Iftikhaar maskiinkan yar ma haysto cid dhahaysa annagaa bixinayna qarashka ee hal la daaweeya maamada. ma garto hooyadiis qaabkuu u daaweyn lahaa ee meeshuu wax u raadin lahaa. isbitaalku ma laha wax naxariis ah. waxayna ugu dambayntii soo saareen maamadii oo aysan wax daawaa siinin. xaafadda markii la keenay nin farmashiista ah oo u dhowaa ayaa u yimid oo ku yidhi ha isticmaasho dhowrkan daawo, waxayna noqon doontaa qof naafo ah oo maanta wixii ka dambaysa aan awood u lahayn waxa ay qaba jirta inay qabato, xataa ay ku adkaan doonto inay hadasho. Iftikhaar waxa uu ku qasbanaaday inuu isaga haro waxbarashada. waxa uu ku qasbanaaday inta uu awoodo karaankiisa inuu isku dayo inuu iibiyo dukaanka. hooyadii waxay rabtaa daryeel, aabbihiina waxa uu rabaa in la soo ogaado halka uu ku dambeeyey. adeer ma lahan, abti ma lahan, deris ma lahan, dad kaloo caawinayana ma jiraan. dawladdu iyadaa la haysataa. dhowr bil markii ay ka soo wareegatay ayaa maalin dambe waxaa u yimid dad uusan aqoonin. waxa ay ku yidhahdeen soo Iftikhaar ma tihid. waxa ay weydiiyeen hooyadood haddii ay hadli kartay in kale, laakiin nasiib darro hooyada ma aha qof hadli karta. waxa ay u dhiibeen warqad, waxay ku yidhaahdeen ku dul aqri hooyada si ay u maqasho. warqadda waxaa ku qornaa waxaan nahay shirkad hebla, waxaan aabbihiin ku leenahay qarash intaa la eg, waxaan u ballansanay inuu bixiyo bishan hadda socota. waxaana soo gaartay inuu dembi galay oo aabbihiin xabsiga loo taxaabay. waxaan u baahannahay qarashkeenna. haddii aabbihiin lacag uu idiin dhiibay ama hanti aad meel uga og tihiin, fadlan bixiya lacagtaas. haddii aadan awoodinna waxaad la socotaan bisha soo socota waxaan iibin doonnaa gurigiinna. nasiib darro bil kadib waxaa laga eegay gurigii. waxa ay noqdeen dad dul saaran dad kale. noloshaasi ayay la qabsadeen oo rafaadka faraha badan, laakiin Iftikhaar weligiina niyadiisa kama bixin in aabbihii booliis wateen oo aan la ogayn jaani cirib meeshuu dhigay. waxa uu go'aan ku gaaray inuu saldhiggii u yimaado oo uu la kulmo taliyihii maalinkii u sheegay in aabbihii maxkamad loo waday. waxa uu la kulmay taliyihii. waxa uu ku yidhi adeer, ilaahay dartii hal mar aabbahay aan arko, hal mar aabbahay la kulansii. xataa haddii aadan aqoonin, ilaahay dartii igu caawi inaan aabbahay arko. taliyuhu wuu soo ceyriyey, laakiin Iftikhaar ma aha mid quusta. maalin walba waxa uu dul taagan yahay taliyaha. waxa uu iridda ka joogaa saldhigga. waxa uu qof walba weydiiyaa aaway aabbahay. taliyihii oo kahsaday wiilkan lakadka ah ee madaxa adag ee marna aan quusanayn ayaa waxa uu go'aansaday inuu ta wada aabbihii u geeyo. waxa uu ku yidhi waan ku kaxaynayaa, xabsigaan ku geynayaa, aabbaha waa arkaysaa, laakiin maalin dambe haddaa ii timaado adigana xabsi kale aan ku geynaya carruurta lagu talagalay. wuu aqbalay. maalinkii ay ballansanaayeen ayuu Iftikhaar yimid. waxa uu u waday
halkii aabbihii ku xirnaa waxaana loo geeyey aabbihii isaga maxaa dhex maray. Iftikhaar waxa uu islahaa aabbaha markii aad aragto isagana uu ku arko wuu kugu soo boodi doonaa, aad ayaad uga farxi doontaan, waa isku dul ooyi doontaan, waad isuraysan doontaan. laakiin nasiib darro arrintu siduu filayay si aan ahayn ayay u dhacday. aabbaha markii uu soo baxay ee uu isha saaray wiilkiisii Iftikhaar ahaa waxa uu ku yidhi, aabbo waxba reerka iyo xaaladdooda ha iiga warramin, niyaddooda iyo xanuunka aad dareemaysaan ha ila wadaagin. waxaan kaa codsanayaa wiilkaygiiow, haba yaraatee kelmad qusaysa reerka oo dhibaatadii idin gaartay aynaan ii sheegin. wiilkaygiiow, aabbahaa waa la nabay, korkiisa ayaa lagu ganacsaday, xabsi daa'im waa lagu xukumay, dhib joogtaa waa loo geystay, welina waxaa laga shaqaynayaa sidii loo dili lahaa oo dunyada looga dhoofin lahaa. aabbo waad yar tahay, waan dareemayaa, waana ogahay xanuunka ku haayo. noqo nin rag ah, iska daa nacasnimada, dadka ha baryan, ha ooyin, adkayso oo xanuunkan aad dareemayso liq. ehelkaaga ha hilmaamin, walaalaha iyo hooyada adigaa mas-uulka ah. u malayn maayo in aan mar dambe dunida ku kulmi doonno. u malayn maayo wiilkaygiiow inay mar dambe kuu oggolaan doono inaad i aragto. waa talada aan ku siinaya aniga. waxaana kaa codsanayaa inaad iridda ka baxdo xataa adigoo aan dhihin aabbo, waayo kelmaddaas haddii afkaaga ka soo baxdo waxaa ii kordhi doona xanuunka aan dareemaayo. Iftikhaar wuu istaagay, xabsiguu ka soo baxay, isaga oo ilinta ka qabanayso, jaraynaya, aan garanayna meel uu wax ka bilaabo, aysan u caddayn wax marka uu reerka u tago u sheegi doono. waxa uu islahaa markii aad aabba aragto reerka aad farxad u geyn doontaa. kuma farxin muuqaalka aabbihii iyo qaabkuu u yiilay. sidoo kale ma farxad gelinin aabbihii waxa uu ka codsaday. ma yaqaan waxa uu sameeyo, ma yaqaan cid uu gargaar u doonto, mana oga waxa berrito isaga hor yaalla. laakiin waxaa jirtay kelmad maskaxdiisa ku soo noqnoqotay oo uu aabbihii yidhi, aabbo maanta kadib ha ii imaanin. aabbo noqon nin rag ah, ha ooyin, ehelkaaga ha hilmaamin, hooyada iyo walaalahana daryeel. waxa uu u fahmay in aabbihii uu ka rabo in uu galo booskiisa. waxa uu go'aansaday inuu qaado tilaabtan. la soco qaybta labaad ee qisadii maalintii Ilaah iyo qunsulkii Cameroon. ha ilaabin inaad subscribe saarto siina gaarsiiso asxaabtaada si ay iyagana uga faa'iidaystaan. mahadsanidin.